aniga maxaa dhacay qofkan waa soo dhaweystay saani sameynaysa walaal baan ka dhigtay ya iyaydey baa dhashay adeerkee baa dhala habareertee baa dhashay xaliimada dariskeena dhashay waa soo dhaweystay assalaamu calaykum wacali khada maanta maxaan ka hadlaynaa 5 tilaabo oo aad ku xallin kartid dhib kasta waad xallinaysaa tibsha xaskuurida taro horta walaalayaal naga mida una dhib qabsan qof kasta oo naga mida runtii dhibaatooyin iyo mushkilada ayaa soo wajaha dhibaatooyinkaas waxay kaga imaan karaan dhanka shaqada dhanka asxaabta dhanka family problem family ya dhibaatooyinka ugu xun horta waxaa kamid ah problem family kamid ah marka qofka dhibaatooyin badan ayaa soo wajahaya noloshiisa intuu nool yahay haddaba waxaan kula wadaagayaa 5 tilaabo oo haddii aad qaatid aad xallinaysid dhib kaste oo aad iska xallinaysid dhib kaste midda koowaad aragtida ku aadan dhibta sidee u aragtaa badankeen waxaan siinaa dhibtan haysataa inta ay xaq u lahayd in ka weyn in ka badan ayaan siinaa xaqiiqatan yacni waxaanu ka dhignaa sida kolo kale oo galaas lagu shubay ma aragteen markaad galaaska aad ku shubtid adii akhi ma haysta maxaan sameeyaa coca-cola markaad soo geeto ood galaas ku shubtid yacni koor bay usoo kacaysaa boos weyn bay qaadanaysaa hodha haddii aad cabaar u kaayso waxaad arkaysaa inuu koobkiiba uu haaf yahayo wax badan ayna ku jirin sidaas oo kale ayay dhibta maskaxdeena ku tahay waxaan u arkaynaa inay tahay waxaan wax weyn oo aanan waxba ka qaban karin oo aanan xallin karin laakiin haddii aad wax yar u kaadisid oo aad si fiican u fakertid waxaad arki doontaa in ay dhibta intii aad sawiranaysay in ka yar ay tahay intaad caqliga qarsoon ayaa jira caqli la dhaho insha allah videoan kasoo sameynaya biidnillah ha hilmaamin channel kale cali khadaab insha allah inaad nagala socotid biidnillah inaan soo dhigaan isku dayaya oo aan video kasoo sameyn marka caqliga ka qarsoon haddii aad ka dhaadhicisid inaad waxaan xallin kartid oo dhibtaan ay tahay wax yaroo caadi waad xallin kartid runtii waad xallinaysaa midda labaad inaad qaabishid dhibta inaadan ka cararin inaadan isdhihin waxaan ma kartid inaad xallisid ama inaad isdhahdid sida dad badan sameeyaan aan arkay iyadaas xallin doontaa waxaan way iska hagaagi doonaa saan maya dhibtaa inta ay bilowga tahay ayay leedahay meel laga qabto waxaan xasuustaa gabar haysata ilmo iyo caruur ayaa gabar qaraabo yihiin ayay guriga keensatay iskuul ayay geysay intaasoo $100 kaga baxday waxbarashay geysay yacni haddii wax soo gadanayso iyadana waxay usoo gadi jirtay ilmaheeda oo kale ayay kasoo qaatay nimankana iska dhurwaayo waa taqaanaan marka waxay dareentay in ninkeeda iyo gabadhan ay soo dhaweysatay oo xiriir ka dhexeeyo wax badan ayay arki jirtay laakiin isla markii dhibtimeena qaban ilaa hadda ay dheeraatay problem badan dhacay la isku dhacay rafaad badan dhacay waali lagu dhawaaday ya mad garatay marka inaan kusii dheeraado ma rabo laakiin dhibta markay bilowga tahay ayay meel laga qabta leedahay markaas hadday meesha ka qaban lahayd oo ay dee xaajiga si banaanka looma tuuri karo moogta ilmiya yani dan baa la isku wataa ilma la isku korsanaya marka gabadhan ay meesha keensatay haddii khadka ka saari lahayd ay tigid usoo jar lahayd meesha ka timaada ay u diri lahayd yani dhibaatooyin badan oo qabsaday mayna qabsadeen soos maaha haddaba isku day dhibta markay bilow tahay oo aad waxaan bilowgeeda aad aragtid inaad qabatid oo aad xallisid ogowna dhib kaste oo kusoo wajahda xal ayay leedahay is looga gudbo ayay leedahay bas caqligaaga waxaad ka dhaadhicsaa inaad awoodid waxaan inaad xallisid mid saddexaad waxay tahay inaad dhibta jirada ka jirtid inaadan haaf xallin oo yacni ama si kumeel gaar aad waxu xallin ma jirto isku day walaal dhibta inaad jirada ka jirtid oo aad hal mar dhammaan iska xallisid maxaa yeelay haddii aad wax yar oo kamida ka tagtid waxaas baa weeyaani hodhow dhibtiina dee booskeeda kusoo laabanaysaa marka dhibta sayan usoo laalaaban oo aada maanta o dhan problemkaas kugu soo laalaaban isku day inaad dhibtaas dhammaan aad xallisid midda afraadna waxay tahay furi hadda dhibtaas yacni dhib baa ku haysata dhibkan xalka yacni kabas qaad kale gabadhiiba aan tusaale usoo qaadano qisada hadda aan kusoo sheekeynayba aan tusaale usoo qaadano gabadha markay fikerto arrintan aragto
okay maxaa xal u ah xalkiiba hesho yani tusaale ahaan oo kale oo ah inay gabadhan khadka ka saarto iska dirto meesha awal ka keentay ay ku celiso saas ma hadda yani fuli hadda ku dhaqaaq hadda samee waxaas yani haddi dhigin oo ha dhigin mar kale ayaan sameynayaa maya hadda yani duruufaha hadda kuu saamaxaya inaad waxaas aada fulisid aada samaysid hadhow dib inaad u helinaya dhici karta marka isku day inaad hadda fulisid oo aada hadda samaysid midda shanaadna waxay tahay walaal ha dareemin stress al-igti'aab walwal haddii aada meel fariisatid aada la fariisatid walwal aniga maxaa dhacay qofkan waa soo dhaweystay saani sameynaysa walaal baan ka dhigtay ya iyayaday baa dhashay adeerkee baa dhala habareertee baa dhashay xaliimada dariskeena dhashay waa soo dhaweystay maxay saan u sameynaysa yani maanta walwal iyo fakar iyo waxaas haddaad meel la fariisatid xal hadhow ma helaysid dhibta ku qabsata xal uma helaysid dhibta dhanka shaqada kaa qabsata xal uma helaysid haddaad fikr iyo stress iyo waxaas aad iskalisid adu unbaa naftaada dhibaya haddaba isku day inaad stresska iyo walwalka iska fulisid iska fogeysid oo aad rajo iskalisid haddaba 5 tilaabo waxay ahayd midda koobaad aragtidaada ku aadan dhibta in yani wax weyn inaad kula tahay inaad wax weyn ka dhigin oo aad xajmiga ay leedahay inta ay leedahay aad siisid midda labaadna waxaa weye inaad qaabishid dhibta oo aadan ka leexleexan aad xalin doonto wax isxaliyo ma jiraan midda saddexaadna waxay tahay inaad u fakartid sidii aad hal mar uga taqalusi lahayd aad yani jirida aad uga goon lahayd meesha uga hoosey jirida waxa la meesha uga hooseysa midda afraadna waxay tahay inaad hadda fulisid yani waxaas aada dhibtaas yani aada dhihin oo dhow waxaas dhib kasta oo ku haysata fakar bal hadda nolosha dhibaatooyinka ku haysta dhan isku day inaad hadda xalisid mar kale ha u kaadin intiin hodhow sii waaweynaan maaragtay iska xali hadda isdhaafi midda shanaadna waxay tahay ha dareemin stress oo stress meelaha la fariisan sumada gara aad baan kuu salaamayaa allah subxaana watacaala hay kaa xifdiyo sidoo kalena videoga hadduu ka cajibiyey like saar maxaa yeele markaad like saarta maartay dadka walaalo kale kasii faaideysanaya oo sii gaaraya markaasna waxaad noqonaysaa yani dadkaad wanaagga tusinaysa sooma yani haddii aad wax ka faa'iidaan ka wada haddii aad aragti kale la imaanaysid ma sheegin marka insha allahna qodobada kale ee dhibaatooyinka lagu xalin kara haddii aad haysidna insha allah qaybta commentiga aad noogu reebaysaa sidoo kalena ha hilmaamin marnaba inaad kusoo birsada channelka kale cali khadaab insha allah isagana fiidiyaal muhiimaan soo geli doonaa waa daalaya asalaamu calaykum